guddida daryeelka iyo dayactirka xabaalaha ee gobolka Togdheer ayaa maanta soo bandhigay qarashaad iyo hantiyo kala duwan oo ku baxay xabaalaha kala duwan ee magaalada Burco oo muddooyinkii u dambeeyay ay dhismayaal iyo dayactir ku wadeen. kulankan ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ah wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland maayir ku-xigeenka magaalada Burco xildhibaan Waarig Yuusuf Cilmi Bidhi iyo barsaabxigeenkii hore ee gobolka Togdheer Maxamed Yuusuf Ubaxle. waxaana sidoo kale kulankaasi ka soo qayb galay xubno kale oo kamid ah odayaashii waxgaradka gobolka Togdheer. ugu horeynba xubno kamid ah guddida daryeelka iyo dayactirka xabaalaha oo halkaasi ka hadlay ayaa soo bandhigay hawsha nadageef iyo aakhiraba lagu liibaanayo iyo siday u fuliyeen. doonay waxoogaa bixinay inaan ka bixiyo mashruucii xabaalaha daryeelka xabaalaha ee aynu bilownay bishii June 15keedii ilaahay mahadii maanta oo aynu joogno 9 bishii 9aad oo 2 bilood iyo 24 casho ay marayso ayaan doonaynaa bulshada inaan ugu bashaarayno in ilaahay hawl yeelay oo ay suura gashay in saddexdii xabaalada ugu waaweynaa magaalada Burco oo October xabaalihii dowladda hoose ka dambeeyay fi aakhiro iyo xabaali ku yaala wadada eeg dadka qaar ay yaqaaneen xabaalaha Xirsi Ismaanka saddexda xabaaloodba inuu dhamaaday deyrkoodii xabaalood maanta deyr ku sameeyaan oo runtii waliba waxaan si gaar ah u sii calaamadinaya si gaar ugu mahadnaqaya dumarka reer Burco ama haweenka reer Burco aan oran karo 80% bay ahaayeen marka dadka taageerada bixinayay oo qaar dahabkooda xitaa ay bixiyeen marka ayagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya bixina inaan maxay raadayay ka bixiyo dhaqaalaha na soo galay iyo sida uu baxay inaad ii sheego lacagta dibadda markaan taabto 15899 ayaa ka yimi magaalada waxaa ka soo ururay $2 ka soo ururay 43,388 oo dollar ayaa ka soo ururay lacagtaas guud ahaan waxay noqotay 59,287 hadda waxaa baxay 58,287 xabaalahan aanu soo kormeernay oo ka ilaaliyay qashinka iyo wasaqdi waxaan leeyahay kuwa kale ee qashinka ku daadinaya ilaahay ha ka yaabaan oo ha ka daayaan siiba xabaalaha October ugu weyn marka hore mucjisad ayat ilaahay baan ku aragnayo ilaahay baa barakiyay baraka ilaahay baa ku dhacday waa dhamaan weyn waxaan u baaqayaa maal qabeenka iyo dawladuba inay qayb libaax ka geystaan xabaalaha oo ay dhul degdeg ah ay ku deeqaan. maayir ku-xigeenka magaalada Burco xildhibaan Waarig Yuusuf Cilmi Bidhi barsaabxigeenkii hore gobolka Togdheer Maxamed Yuusuf Ubaxle iyo oday Faarax Xadhigle oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa guddidaasi ku hambaliyay hawsha ay qabteen. waad ku bilowdeen meesha la yahay xabaalihii waad ku hirgasheen laakiin mashaariicdiinu inta xabaalaha ay ku ekaan kordhiya hukum fayakun aj'al ma tashtahihi qulubuna yakun ya rabbal alamin oo guddidii xabaaluhu oo culimadeennii iyo labeenteenii ay noo soo bandhigeen warbixintii iyo halka hawsha ay marayso runtii waa farxad ilaahay waxaan uga baryaynaa in maaragtay hawsha ay qabteen uu ka abaalmariyo oo ka siiya xasanaad aroortan ay noqonayso ay tahay meeshii aynu gelaynay inay in badan dayacnaadeen ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu mahad celinaynaa annagoo isku duuban saaka inay suurto gashay 4 meelood oo waaweyn oo xabaalihii caanka ah ee Burco lahayd in maanta la deyray oo dhameystirantay waa mashruuc guula meel wax laga qabto meeshii uu wacnay ayay bilaabeen wax ka qabteen iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. ugu dambeyntii wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland ayaa ka xukuumay sida wanaag ugu jiro in la daryeelo xabaalaha isla markaasina la dayactiro. waxaan si aad iyo aad ugu mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad waayeelka iyo waxgaradka iyo guddida gobolka Togdheer waxa weeyaan hawshan isu xilqaamay intaas warbixinta dheer ay bixiyeen iyo waxa ay qabteen ilaahay uu ku guuleeyay dhaqan iyo caadana u lahaa inay qabtaan mashaariicda horumarinta ee dadku uu isu xilqaamo oo wax ku ool ku ah maanta gobolkan halbowlihiisa ugu waaweyn kamida waa Maxamed Xuseen Ismaaciil Maxamed Mooto telefishinka caalamiga ee Bulsha TV magaalada Burco.